halkani waa BBC oo London idinkaga imaanaysa aadna ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa FM-ka barta internetka ee bbcsomali.com iyo weliba mobilka oo gacanta lagu qaato oo aad toos inooga dhageysanaysaan sidoo kalena waxa aad inaga daawanaysaan barta Facebooka. جمعة وناكسن سيدا عدودن تين نخيارتها وضع نقلها حريرتاي واللبية اللباتنكا بيشا جون سنتكا لباتن سديد يطبن قضبضا وركا عالم كان وحا وقوة وين قرمدا مدوبية وكوية دي سيد دولة فنسويلا إنay ku kacday xasuuq ay u geysanayso shacabkeeda xukuumadda Itoobiya oo si rasmi ah ugu soo celisay adeegii internetka bogagga internetka isla markaasna xayiraadii ka qaaday idaacado iyo telefishinno barnaamijka dooda jimcaha ee waxay ila tahayna galabta waxaan ku soo qaadan doonaa safarkii ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ku tagay magaalada Muqdisho kulamadii iyo is-afgaradkii uu la gaaray madaxweynaha Soomaaliya oo ay ka mid tahay حقيقة دكاد عدل سيء ملح دكادوه هنا صومالي كيالا وحي أباهيهن دقالي لغوهر مريوه ولغود السوق يوباهيهن دقالها سلقلنا ينا سان شيغي صومالينا ملحا إتوبينا ملحا وحي كإيمان كران ملوب qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-dana fikirkooda ayay barnaamijka ku soo dhiibteen aqligalna maaha hadalka ah in Itoobiya wadankeena qaadanayso laakiin waa hadal ay rabaan siyaasiyiinta mucaaradka inay dadka dawladda ku soo jeediyaan mucaaradkana waxaan leeyahay xilliga mucaaradnimada lama joogo dhageystahana su'aashan ayuu qabaa maalintii berbere la yiri imaaraadka ayaa la wareegaya waa ku cabaadiyay maxaa imaaraadka loogu diiday hal tikada laga siiyo Soomaaliya arrimahaas ayaynu barnaamijka ku rogrogi doonaa saacada soo socota haddii alla idmo waxa soo saaray Cabdinuur Sheekh Maxamed aniguna waxaan ahay Mawlid Xaaji Cabdi intaynu gudo galin barnaamijka oo faahfaahsan aan idinku wareejiyo aadan maxamed cabdi saalamiin oo inoo haya wararka caalamka kuwooda ugu dambeeya maasanid Mawlid Xaaji Cabdi xafiiska xuquuqda aadanaha ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ay ku leedahay dalkaasi Venezuela ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidamada ammaanka ee dalka Venezuela inay dil u geysteen boqolaal qof kuwaas oo aan waxba galabsan tallaabo ay kula dagaalamayaan dambiyada Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa waxa ay sheegtay inay hayaan xisaab la isku halayn karo in ciidamada amnigu ay weerareen xaafadaha danyartu ay degan yihiin ee ku yaala wadankaasi isla markaasina ay dilaan ragga dhalinyarada ah intooda badan guryahoodana ay u dhacaan kadibna ay sameynayaan xaalado ay cadeymo ugu muujinayaan oo ay u ekaysiinayaan inay dambiyadu ay hoos u dhaceen iyadoo kuwii ka mas'uulka ahna lala xisaabtamin markab kuwa wax badbaadiya oo Jarmalku leeyahay oo sida 234 soo galootiya ayaa doonaan markabkaasi iyo shaqaalahooda dabadeedna ay tallaabo sharci ah ay ka qaadi doonaan waxa uu ku eedeeyay hay'ad samafal oo Jarmalka laga leeyahay oo ka howlgashay biyaha Liibiya inay ka hor imaanayso qawaaniinta caalamiga ah taas oo ay kooxduna ay gaashaanka ku dhufatay hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay ka digtay in aanu jiri doonin qoraal dhammaystiran oo ku saabsan soo galootiga oo ka soo bixi doona shiriraha degdega ah ee madaxdu ay isugu imaanayaan Brussels toddobaadkan waxa ay ka sheegtay shir jaraa'id oo ay ku qabatay Beirut in isdhaafsi hordhac ah uu jiri doono ka hor shir madaxeedkaasi oo si buuxda madaxdu ay ugu yeelan doonaan Brussels madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk oo isaguna booqanaya magaalooyinka Vienna iyo Budapest ayaa waxa uu isku dayayaa inuu isku soo dhaweeyo isfaham uu dhex dhigo midowga Yurub si ay diiradda u saaraan isku soo dhaweynta farqiga u dhaxeeya afayeen u hadlay dawladda Hungary oo lagu magacaabo Sultan Kafakis ayaa BBC-da u sheegay Hungary inay doonayso inay ilaaliso dhaqanka iyo dhaxalka ay leedahay oo ay ka ilaaliso soo galootiga dhaqaaladoonka ah In the heart of Europe, in Central Europe, we all know a lot about multiculturalism and how to live in an international environment. Waanu ogsoonahay marka laga hadlayo wadnaha Yurub inay jiraan dhaqamo badan iyo in lagu wada nool yahay bi'ad caalami ah. Hase ahaatee taas oo jirta ayaa haddana waxaanu arkaynaa waxa Yurub ku soo socda ee ku soo fool leh weliba inta badan qaybo Yurubta galbeed ah oo ay soo baxayaan bulshooyin aan dhaqan ahaan isku milmi karin taasina waa xaqiiq jirta.
don't mix, and that's a fact. wasiirka warfaafinta ee South Sudan Michael Makuwa Luth ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Salva Kiir uu ka qaybgalayo wareeg cusub oo uu la yeelanayo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar toddobaadka soo socda, laakiin wasiirku waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada in Mr. Machar uu dib ugu biiro dowladda. kadib heshiiskaas oo iminka dib loo noolaynayo, Riek Machar sidoo kale waxa uu soo noqday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee ugu horreeyey, waxaanu isku dayey inqilaab. tani waa mid annaga nagu filan iyo dadka koonfurta Suudaan oo nacabsi gelisay, mana doonayno mar kale inay dhacdo. tani waa mid ay leeyihiin dadka koonfurta Suudaan ee maaha mid uu madaxweynuhu keligii isagu odhanayo. waxa aanu leenahay waxa nagu filan waanu haynaa. haddii uu doonayo madaxweyne waa inuu sugaa doorashada. arrintan ayaa waxay u muuqataa diidmo furan oo ku saabsan heshiiska nabadda ee dalalka IGAD ay horay u doonayaan inay u sii wadaan, taas oo la soo jeediyey Riek Machar inuu dib ugu laabto jagadiisii hore ee ahaa madaxweyne ku-xigeen, jagadaasoo uu lumiyey kadib markii uu isku dayey in madaxweyne Kiir Andhehe uu inqilaabo oo ay isku dhaceen sanadkii 2013. Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 30 sano waxa ay bilowday inay kalluun u dhoofisay Kenya markii uu aad u yaraaday heerkii burcadbadeeda ee xeebaha Soomaaliya. dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya waxa uu sababay in ganacsi badan uu hirgalo, hase ahaatee ganacsatada kalluunkaasi ee magaalada Kismaayo waxay sheegeen inay dhoofin karaan kalluunka oo ay u heleen qaboojiyaal ay ku shaqeeyaan warshada kalluunka ee Kismaayo, waxaana loogu jecel yahay kalluunka nooca tuunada iyo taraaqada loo yaqaano. sanadihii dhawaa Kenya waxa ay kordhisay kalluunka ay ka keensto dalka dibadiisa kadib markii uu batay dalabka kalluunka ee laga soo saaro xeebta harada Victoria ee Kenya. ugu dambeyntiina dowladda Itoobiya ayaa waxay sheegtay inay fasaxtay tiro ka badan 250 website oo ah baraha bulshada iyo telefishinno wararka baahiya oo la xiray. sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in xorriyadda hadalku ay tahay xaq asaasiga ah iyo in wararku si xor ah ay u socdaan ay tahay mid muhiim ah. arrintan ayaa waxay calaamad u tahay isbeddelka siyaasadeed ee adag ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu doonayo inuu dhaqangeliyo. 10 sano ka badan mas'uuliyiinta Itoobiya ayaa si adag u xayiray helitaanka internetka, waxaana la xayiray xarumo telefishinno kuwaas oo loo arkayay kuwa dhaliila dowladda. warkii oo intaasi ku eg dibidu ka celiya Mawlid Xaaji Cabdi. aadan maxamed cabdi saalimin aad iyo aad u mahadsan yahay. waxa uu inala socodsiinayay wararka BBC-da kuwoodii ugu dambeeyey. haatanna u diyaar garooba barnaamijka dooda jimcaha ee waxay ila tahay. maalin wanaagsan sida aad u dhantihiin mar kale. horaantii toddobaadkii hore waxaa booqasho oo aan horay loo sii shaacin ku tegey magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, waxaana si diiran ugu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. kulan saacado qaatay oo ay xarunta madaxtooyada ku yeesheen Farmaajo iyo Abiy Ahmed kadib waxay si wada jir ah u soo bandhigeen warmutiyeed ka kooban 16 qodob oo nuxurkiisu u ahaa waxyaabihii ay ka wada hadleen oo ay isku afgarteen. qodobadaasi waxaa ugu muhiimsanaa iskaashiga dhinaca ammaanka dhaqaalaha, iyadoo si gaar ah farta loogu fiiqay in 4 dekedood oo Soomaaliya ku yaala gaar ahaan badda cas iyo badweynta Hindiya balse aan la shaacin kuwa ay yihiin lagu samayn doono maalgashi ayna ka faa'iideysan doonto Itoobiya oo aan lahayn deked. inkastoo dadka qaar uu dhaliilay qaarna uu soo dhaweeyey kulankii iyo qodobadii ka soo baxay, haddana waxaa su'aalo la iska weydiinayaa sida qorshaha labada hogaamiye ku hirgeli karo. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa markii uu ku laabtay dalkiisa waxa uu u sheegay TV-ga dowladda in arrimo muhiim ah ay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo ayna isku afgarteen. waxaana uu xusay in sidoo kale sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay dhici karto mustaqbalka labada wadan inay noqdaan hal dal, arrinkaas oo dowladda Soomaaliya ay si kulul u beenisay markii dambe, iyadoo sheegtay in aan laga wada hadlin wax ku saabsan midaynta labada wadan. haddaba labadan dal ma waxaa u bilaabanaya waa cusub oo ay kaga gudbayaan sannado badan oo colaad taariikhi ah ay u dhaxaysay oo ay ku bedeli karaan nabad iyo iskaashi iyo weliba wax isweydaarsi. mise la jooga mise tahay wakhtigii ku habboonaa xilligan in labada shacab uu u bilowdo
bog cusub oo ku dhisan iskaashi iyo nabad ku wada noolaansho. iskaashi caynkeeya ayuu noqon karaa kaasi. su'aalahaas iyo kuwo kale ayaynu mawduuca maanta ee barnaamijka Dooda Jimcaha ku qaadaa dhigi doonaa. waxaa marti inoogu ah oo barnaamijka ka qayb qaadanaya ambassador Daahir Maxamuud Geelle oo ah wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya. qadka telefoonka ayuu kaga jiraa barnaamijka kaga qayb qaadanaya. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ahna professor wax ka dhiga jaamacado ku yaala Mareykanka iyo waliba waddanka Koonfurta Afrika ayaa sidoo kale barnaamijka qadka telefoonka ka qayb qaadanaya. Professor Cabdisalaam Maxamed Ciise Salwe oo ah jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ama Puntland ayaa isaguna stuudiyaha BBC-da London igu weheliya. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. dhegeystayaasha BBC-dana fariimaha qoraalka iyo waliba codad ayay barnaamijka kaga qayb qaadanayaan. waxaan dhegeystayaal idinku soo dhaweynaya daawadayaal inaad su'aalaha aad qabtaan ee mawduucan ku saabsan aad ku soo weydiin kartaan si toosa barta Facebooka martida barnaamijka ka qayb galaysa. intii aanan u guda gelin dooda aynu wax yar wada dhegeysanno warbixintan soo socota oo ku saabsan safarkii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku tagay Soomaaliya iyo qodobadii ay isla gaareen madaxda dowladda Soomaaliya iyo waliba hadalkii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu sheegay markii uu ku laabtay waddankiisa. waxaa soo jeedinaya Cabdirasaaq Xaaji Catoosh. kulankii isfahamka ahaa ee labada dowladood ay Muqdisho ku gaareen ayaa waxaa ka dhashay buuq fara badan iyo waliba in fasiraad kala duwan laga bixiyo. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa markuu Addis Ababa ku noqday waxa uu dadka u sheegay in dowladda Soomaaliya ay isku afgarteen arrimo fara badan iyo waliba mustaqbalka labada dal. sidan ayuuna hadalkiisa u dhigay. wadahadaladana dhex maray waxaan ku heshiinay arrimo rajo badanna geliyey sida inaan si kumeel gaara isaga kaashanno dhaqaalaha mustaqbalkana aan shacabkeenna midayno oo aan noqonno hal dal oo dhammaystiran. waa in waddamada geeska Afrika haddii ay suuragal tahay ay noqdaan hal dal oo midaysan sida Dubai ama Mareykanka ama Yurubba, taasoo aan ka heli karno faa'iidooyin ballaaran caalamkana aan uga yeelan karno awood gorgortan. marka arrimahaasi ayaan ka wada hadalnay. haddaba taa micnaheedu muxuu yahay? Soomaaliya waa dal juqraafi ahaan ku yaalla meel muhiim ah, laakiin biyaha badda ee intaa la eg ee Soomaaliya ku wareegsan waxay noqdeen kuwo maalintiiba aan lagu arkin hal markab. ma aha biyo la cabbi karo ama wax lagu beeran karo. marka inaan dhahno dekad la'aan ayaan nahay dhibaato ayay nagu tahay. mustaqbalka fog marka la eegana arrintaasi dhibaato iyo waxyeello weyn ayay nagu yeelanaysaa. ከረጅም ጊዜ አንጻር ጎጂ ሆኗል እየጎዳን ያለው balse dowladda federaalka ayaa iyaduna si ka duwan sidaasi uga hadashay wixii Muqdisho ay ku gaareen labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo warbaahinta dowladda waraysi dheer siiyey ayaa sheegay in lagu heshiiyey in maalgelinta dekedaha Soomaaliya ay iska kaashan doonaan Itoobiya iyo Soomaaliya, balse faahfaahin dheeri ah kama uusan bixinin madaxweynaha iskaashigaasi waxa uu noqon doono. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo isna Norway kula hadlayay jaaliyad Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dekedaha Soomaaliya aysan cidna qaadan karin oo ay Soomaaliya ku yaalaan. welina waxaa taagan dood kulul oo Soomaalida ay isku dhex weydiinayaan warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada. walow dowladda Soomaaliya ay sheegtay in is-afgaradkii Muqdisho uu ka dambayn doono guddi isku dhaf ah oo dowladda Soomaaliya iyo tan Itoobiya ka socda oo sii faaqidi doona waxa ay tahay maalgashigan Itoobiya iyo Soomaaliya ku dhex mari doono dekada 4 ah oo ilaa hadda aanan la cayimin magacyadooda. isku soo wada duuduubo fasiraad badan ayaa dul hoganaya wax walbo ay isku afgarteen Itoobiya iyo Soomaaliya. arrimaha sida weyn isha loogu hayana waxaa ka mid ah heshiiskii horay baarlamaanka Soomaaliya uu ku laalay shirkadda DP World ee Imaaraadka laga leeyahay iyo halka heshiiskaasi uu ku dambayn doono. Cabdirasaaq Xaaji Catoosh aad iyo aad baad u mahadsan tahay. warbixintaasi sawirka guud ee naga siinaysay arrimaha mawduuca maanta barnaamijka dooda ay ku saabsan tahay ayuu inoo soo jeedinayay. haddaba si marka hore bal aynu fikir kale oo dheeraada aan u qaadano gaar ahaan qodobada ay ku wada heshiiyeen labada hogaamiye ee Soomaaliya iyo Itoobiya aynu dhageysanno hadaladii uu jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay in aan soo gaarnay level Itoobiya aan ka wada hadalno maxaan istari karnaa sidee u kala faa'iideysan karnaa. Itoobiya maxay haysaa oo annaga u baahannahay, annaga maxaan u baahannahay oo Itoobiya ay u baahan tahay. xaqiiqatan waxaan ka arkay prime ministerku waji fiican
oo u arko Soomaaliya inaan soo gaarnay meel aan iyagana wax tari karno iyaguna ee waxna tari karaan marka taas waxay keentay Soomaaliya waxaan offer garan karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin bacdama ay yihiin landlord aysan dekada lahayn waxaan annaga Soomaaliya aan dhaqaaloodu aan ku kordhin karnaa waxa weeye waa dekadahaasna anagu dhaqaalo ma haysano iyaguna dhaqaalo uma haystaan ku dhisan laakiin waxa bilaabanaya markiiba hadii dekadahani ay ku wajahan yihiin inay supply gareeyaan 100 milyan oo Ethiopian oo aan dekada lahayn in dalal iyo shirkado badan iyo shakhsiyaad badan oo ganacsato ah ay maal gashadaan maxaa yeelay meeshaas waxaa jooga consumers badan ayaa jooga annagu markaa cid alla ciddii maal gashanaysa dekadaheena afar kaliya ma xitaa waxaan jeclaan lahay inay ka bataan bacdama aan 3300 oo kilomitir aan leenahay oo ah xeebta ugu dheer Afrika madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ahaa oo la hadlayay warbaahinta afka dawladda Soomaaliya ku hadasha waayahay intaanan u guda galin martida kale ee barnaamijka waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo mikrofonka wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle saacadii wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga iyo sidaad nooga aqbashay inaad barnaamijka aad martida ahaan uga soo qayb gasho inta aynan u guda galin saaxiibadaada kale barnaamijka ka qayb qaadanaya maxaad ka tagnay oo aad is leedahay waa raacin lahayd dooda ka hor aad iyo aad waa mahadsantihiin adiga iyo dhegeystayaashaada iyo walaalaha qiimaha ka qayb qaadanaya dooda runtii mawduuca sida loo dhigay aad u wanaagsan yahay kaliya waxaan jeclaan lahaa marka laga hadlayo annaga iyo Ethiopia 16 bishaan bashari wixii midkeega ama murtiyad ka soo baxay iyo markii ka dambeeyay dawladda Ethiopia ka soo yeeray markaa Ethiopia nidaahdee in si ka dhamaystiran loo oo adilankiisa lagu joojiyo waxaan jeclaan lahaa anigu afkaan xaaliga ma aqaan isoo yeelana hawsheedana ma aha inaan hadda digo rajaala Ethiopia oo ka hadlo laakiin jeclaan lahaa in warka aan la kala goynin oo magaalada Ethiopia sida tarjumada ku helnay waxa uu leeyahay sida Yurub oo kale ka hadlaya sida Mareykanka oo kale ka hadlaya sida Imaaraadka oo kale ka hadlaya sida Afrika oo ka hadlaya wadamo boqortooy oo ka hadlaya sida Suudaan Eritrea iyo Djibouti iyo annaga oo Soomaali ah waxaan dhalaalaha markii baashay waxa iska shaabihi karaan Yurub Soomaaliya Ethiopia ma shaabihi karaan waxa uu ekaan karo ama muuqaalaya karo wadamada geeska Afrika oo jira mana noqonayso wadamada isku kaashaday muuqaal ay bixin kartaan hal wadan isku noqday muujin karto laakiin isku soo duuduubo dowladda Soomaaliya waxa ay ka heshay oo aragtida ay ku wadaagtay dalka Ethiopia waxa ay leedahay 6 qodob kumeedka ku qoraa ka baxsana noqonayaan aragtida oo ay u gaartay waayahay wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay meelahaas fasilaada ka bixisana dabcan way mudan tahay in dhug loo yeesho waayahay waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan u wareego qadka telefonka ee waddanka Mareykanka professor Samater labada dal iyo labada dad soo kuma jiraan qodobadan haddii ay hirgeliyaan wax uun la oran karo wanaag ayay salka ku hayaan walaal daahir wuu salaaman yahay waxay isugu ka dambeysay waagii maxaakiimta soo dhawow daahir iyo Dr. Selwi iyo dadka Soomaaliyeed waxa weeye waa war wanaagsan in la wada shaqaysto waxay ka wanaagsan tahay in laga shaqaysto marka haddaan qaadno hadalka Farmaajo uu yiri Mareykanka oo kale Yurub oo kale Itixaadka oo kale waa saddex meelood oo aad u kala duwan weeyaan oo in la fahmo Yurub wadan qura may noqon Mareykan waa wadan qura waxay ku heshiiyeen Yurub dhaqaalaha inay isku darsadaan in muddo fara badan oo laga yaabo 100 sanadood inay noqoto in Yurub wadan noqon karto Imaaraadkuna way ka duwan yihiin taasi marka in la kala fahmo siyaabaha ay u kala yaalaan taasi waa koow talabaadna haddaan kaaga soo qaado Yurub laba wadan ayaa halbowlo ah waa France iyo Jarmalka oo European Union kama hay'adda Yurub salwaha dagaal baa xun baa kala dhex maray Yurub Jarmalka iyo Faransiiska waa la qabsaday Jarmalka qabsaday dhul bay kala haysteen bariga dalka Faransiiska ku yaala
si loo dhiso dhaqaalaha yurub midayntiisa laba arrimood ayaa la yeelay. mid waxa weeyaan Jarmalku wuxuu ka toobad keenay khaladkii uu Faransiiska ku sameeyay, dhulkiina waa loo celiyay Faransiiska. marka haddii la doonayo walaaltinimada maanta France iyo Jarmalka ka dhaxayso oo ah baroosinka ugu weyn Yurub dhaqaalaheega iyo dawladnimadeeda, marka ugu horeysa waxaan oran lahaa dawladda Soomaalida iyo madaxweynuhu inay ka fiirsadaan horta ama is-aaminnimadii ma la dhisay, leen taasaa ka horeysay waxaana la isku darsanaya oo aaminaad ma timid Ethiopia iyo Soomaaliya dawladaheega ka dhaxeeya iyo dadkeegaba ka dhaxeeya. talabaad ma la magacaabay oo ma la qeexay danta Ethiopia waxay tahay iyo danta Soomaalidu waxay tahay iyo sida ay u kala duwan yihiin iyo sida la iskugu keeni karo. ta ugu dambeysana hadalkan ugu horeeya waxa weeye walaal Ethiopia ciidamadeedu Soomaaliya ayay joogaan. markii ugu horeysay African Union ku keenayay ciidamada Afrikaanka waxa lagu saxeexay inaan wadamada dariskii hayna ka soo qayb galin. Ethiopia iyo Kenya labaduba way iska soo qayb galeen. Daahir Xamar ayuu joogay markii Ethiopiaanku Muqdisho qabsan doonaan iyadoon cidna u fasaxin. marka waxa weeyaan haddii la doonayo jid cusub iyo hanaan cusub oo walaaltinimo in la dhiso, imika walaalo lama ahee jidkii hal la qeexo. laakiin professor adoo iga raaliya markii dambe laakiin sida la sheegayo dawladuhu ay sheegaan sifa sharci inay ku yimaadaan bay sheegtaan ciidanka Ethiopia. waxa weeye walaal ma waxa la sheegay mise markii dambe ayaa dabada lagaga soo daray oo ahdigii ugu horeeyay ee baroosinka ah African Union ka la jabiyay. taa iska soo dhaaf. waxa weeye Ethiopia xamar bay dad ku leysay 20,000 ugu yaraan, dad fara badan oo Soomaali ayaa ku leeday wadamada ay gobolka joogto. marka haddii sidii Faransiiska iyo Jarmalka la doonayo in la heshiiyo, horta Ethiopia waa inay dambiga qirataa kana toobad keentaa. marka taa la keeno ayaa gogol xaadkii bilaabmi doonaa waxyaabaha kale ee laga tashanayo. talabaada ugu dambeysana waxa weeye gobolada Soomaalida mid walba madaxdeeda marba Ethiopia u yeerataa, ama Puntland ha u yeerato, ama Galmudug ha u yeerato, ama Koonfur Galbeed ha u yeerato, ama Jubbaland ha u yeerato. marka toobadkeedka dabadeedna waa inay timaadaa inayna dawladaha gobolada midnaba soo faragelin karin Ethiopia. markaasun baa laba wadan oo isbarbar yaalla oo wada xaajoonaya oo dantooda ka wada tashanaya la noqon karaa walaal. waayahay professor waa kugu soo laaban doonaa. waayahay arrimahaasi laftigooda waan jeclahay inaan hadal ka iraahdo, laakiin waxaan jeclahay u wareego stuudiyaha BBC-da ee London Dr. Cabdisalaam Maxamed Salwe stuudiyaha la fadhiya oo aad maqlaysay madaxweynaha hadalkiisii, sidoo kale wasiirka warfaafinta aad maqlaysay sida ay u difaaceen isafgaradka Ethiopia iyo iyaga dhexmaray iyo qodobadii ay ka wada hadleen iyo weliba hadalka professor Samater. adigu maxay kula tahay? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا waxaan qabaa horta hore waxaa muhiim ah in loo nool yahay waxa soo socda, waxa jooga kaliya aan lagu mashquulin iyo wixii tagay. macnaha waxa joogayana orana wixii tagay. waan qabaa professor Samater kelmadda uu leeyahay waa wax xaqiiqo ah wey, wuxuuna ka hadlayaa waa wax jira, waa facts. marka waxaan ku darayaa qodobka ah horta hadalkii hadda uu yiri iyo 12 communique soo jeediyeen madaxda labada madax Soomaaliya Ethiopia waxa weeye waa afgarad weeye, macnaha ma dhamaystirna kooyla ma joogo. kelmadda marka waxa ku jirta oo qodob ah in la sameeyo technical committee, guddi farsamo guddigaasoo eegaya xaaladda. marka waxaan qabaa horta waxaan waa soo socdaan, laakiin staabiska marka meel kasta ha gaarto waa wax jira weeye. marka haddaynu ka hadlayno waayaha dambe waxa ay inoo fiican wadan ahaan Ethiopia iyo Soomaaliya waa xaqiiqo weeye. waxa weeye waa in aynu noqonnaa dal xag dhaqaalaha wax wadaaga isugu yimaada, muxuu ahaa wax ay kala iibsada, waayo waxay hayaan baa jirta innagaan u baahan nahay, waxna annaga aan haynaa jirta iyagu u baahan yihiin. marka qodob ahaan waxaan qabaa taa iyada ah in xoog la saaro. qodobka marka ah waa jirtaa taariikh xun baa kala dhex martay Soomaaliya Ethiopia, sidoo kale adduunyada ummado badan bay dhex martay. dagaalkii labaad oo kale Jarmalka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska way dhex martay. sidoo kale wuxuu baxay Jabaanka atomic nuclear bomb meel lagu dhufto adduunyada mataqaana kaliya ahayd waxay Jabaan xiriir ka dhaxay iyaga Mareykanka waa kan xaqiiqa. laakiin maxaa ka horeeya weeye? waxa ka horeeya waxa weeye in ay asturaan wixii ayna kala qaataan oo wixii dhaawaca kala gaaray ha noqoto, oo xataa marka laga soo noqdo dagaalkii labaad dubkii jidkii dhaca ka sokow
waxaa la isku dayay dowladii Mareykanka kale wax isku dayday oo xoogga saar Jarman inay dhaqaalaha kabto waxaana ku kordhiso xagga teknolojiyada xag dhaqaale nolol weey baa waa qodobka professor oo ka hadlaya horta wixii inay kala mataqaana cafis noqdo markaan soo noqdo xaaladdan inaga waxaan qabaa u baahan lahay inaan isugu dhimaano inkastoo qodobka xoogaa aad moodo xoogaa dheereen baa ku jirta anigu sida hadda ii muuqata waxaad moodaa qodobka hadda la qoray iyo sida fikir inkastoo ay dhamaystirneen xoogaa way dheereenaysaa waxaa dheereenaya hadda ninka prime minister waliba howlaha uu wato hadda goboladii buu soo wada maray qorshooyin badan buu bilaabay runtii horta aynu wax yar eegno laftigeeda xaaladda uu ku sugan yahay hadda abiye doctor abiye axmed waxaad moodaa aad buu dheereenayaa dheereynta waxaan ka wadaa waxa dadkii xornaabu sii daayey xukun degdega ahaa oo muddo harsanayd buu joojiyey dhinaca kaloo hataa Eritrea heshiis la galay oo degmo leeyahay Badme oo ay kala haysteen oo dagaal dhexmaray dhowr 789 kun qofood ku dhimatay u fasaxay oo heshiis UNTO heshiis loo gaaro la yiri waxa iska leh degmo ahaan oo laakiin Ethiopia diiday Eritrea marka xaaladaha markaa fiirisid iyo isbedel xoog leh uu dalka ka wado hadeer oo xag dhaqaalaha aad moodo waa dhaqaalaha xoogga socda 8 ilaa 10 baa lagu qiyaasaya sanad kasta dhaqaalaha inuu koriyo xoogga waxa korinaya waxa way waa dhaqaalaha waxa wada marka dawladda wada ma aha wax private u badan marka wuxuu marka isku dayay hadda inuu fasaxo dhaqaalihii inuu furo marka halka waxaad moodaa waxa way marka garaangartan wareegaysa iyo kalmadan socodkiisaas waxaad moodaa inuu ku jirto xawliga ku socdo waayahay hadduu asagu waddankiisii arrimahaasi uu u doonayo wanaaga u arko inuu u sameeyo yani aad leedahayna degdegna waa ku jiraa soomaalida laftigooda markaad fiiriso gaar ahaan madaxda soomaalida heshiisyadii dhacay oo kale maxay u baahan yihiin inay eegaan oo qiimeeyaan ayaga qudhooda waxaan qabaa heshiisada dhacay horta waxa ku ilaa ma joogto oo hadda waxaan sugaynaa waxa meesha macnaha ay ka wadaan waayo hadda qodobada 16ka qoran waxa ka mid ah xuduudaha in la sufro la sameeyo marka waxa haboon horta inaanu eegno maxaa inaga maslaxad inoo xoogaa waxaad moodaa cilad yar baa jirta oo dadku aad looga dadiyo oo investment inay ku yeelato la gasho maalgelinta waxaa sheeg ku jira in maalgelintaas ay haleeli karto Ethiopia dhaqaalaheeda marka la eego midda kale 4 dekedood markaad tahdid waa buur wax ka weyn weeye waayahay igara laho markaa Dr. Salwe dareenkaas adigu aad qabtid ee dareenka Soomaalida kale ay qabto waxaan jeclahay inaan wasiirka u wareego Daahir Maxamuud Geele wasiirka warfaafinta saacadii wasiir inkastoo codkaaga telefoonka markii hore naga googa'ayay waxaan rajeynayaa markan inuu nadiif noqon doono haddii ay jirto meel signalka telefoonka uu ku yaryahay meel ka fiican aad ku sugan tahana way fiicnaan lahay si aan u maqalno codkaaga aan u maqalno si fasiixa waayahay waad maqlaysay Dr. Salwe dareen yar buu qabaa oo ku aadan 4 dekood inay badan tahay dhaqaalaha ku baxayana uu badan yahay maalgelinta madaxweynaha Soomaaliya laftigiisa markuu la hadlayay arrintan ka hadlayana wuu sheegay in Ethiopia dhaqaale haysan Soomaalida dhaqaale haysan walaaca caynkaasiya dowladda Soomaaliya ma u muuqdaa sidaas uga jawaabaysaan dadka uga qancin kartaan arrintaas wasiir Geelle ma maqlaysaa waayahay wasiirka waa maasan yahay waxaa moodaa qadka telefoonka inuu yara cilada ku jirto waxaan u wareegayaa professor Samater arrintaas ku aadan in adu inkastoo aad hore mowqifkaaga noogu yara caddaysay laakiin dhaqaalahan meesha laga helayo iyo meesha uu ka imaan karo iyo heshiiskan siduu ku hirgeli karo markaad adigu aad eegto maxay kula tahay professor Samater walaal mawlid Dr. Salwe wuu mahadsan yahay waxyaabo fara badanna wuu sheegay marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan si adkeeyo kelmadaha uu ku dhuftay carabka walaalkay oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa ku jirta quwad weyn energy waxana af Ingiriiska lagu yiraahdo iyo xawli weyn inuu ku socdo meel baa u muuqata waxaan qabaa waxyaabahan uu wado haday sidaa u sii socdaan oo inqilaab lagu sameyn inuu ra'yigiisu urin karo inuu noqdo dadkan la siiyo Nobel Prize for Peace waxaan la dhaho ama abaalmarinta caalamiga ee nabadda abaalmarinta caalamiga ee wadanka Norway laga bixiyay ku saabsan xagga nabad keenta marka waxa weeye energy-ga uu wado iyo meesha uu socdo arkayo iyo Ethiopia doonayo inay noqoto halbowlaha Afrikada bari
waxa weeye waa arrin dhinaca lagaga diirsado qof afrikaana haddaad tahay haddaad soomaali tahayna waxa weeyaan qayrkaybaa waxaa samaynaye kuwaygii aaway ra'yigii curin lahaa energyga caynkaas ee muqdisho yaala aaway abaabulkii caynka ahaa ee dadka laysku ludubaridi lahaa aaway qorshihii keeni lahaa strategic qorshe ah oo halbowle ah oo hori kara waxaas waayahay professor samater aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad moodaa hadalladii labadiinuba aad sheegteen inay ku socdaan dowladda oo wasiirkii hadda khadka ku soo laabtay wasiir waxaan filaya hadda inaad maqlaysid su-aashii hore oo aan ku weydiiyey waxay ahayd walaaca ku aadan 4 dekedood iyo maalgelinta intaas la-eg oo Ethiopia dhaqaalaheedana madaxweynuhu uu sheegay dhaqaale haysan Soomaalidu dhaqaale haysan xagee lacagtaas ka imaanaysa oo kale walaacaas oo kale oo hadda professoradu ay qabeen iyo hadalkan hadda ugu dambeeya professor Samater oo idin la hadlayo maxaad kaga jawaabaysaa walaalow hadda ma jecli inaan dadka aan daba kaco halkii la yiri dadkaana waa dad Soomaaliyeed waa aqoonyahan Soomaaliyeed say dhamaystiran ay ka dhiiban karaan dalka Soomaaliya iyo wixii maaxad Soomaaliya ku aadan laakiin kaliya waxaan jeclaan lahaa in qodob loo abaaro leeyahay qodobka bay leedahay dabcan 16 qodob ayaa communique ku qoran waxaa kamid ah in la fududeeyo socodka dadka iyo xoolaha مثلا إن دبلوماسية الحوجي أو دبلوماسية وحلاقة قبطة أو قنصلية البضية أو تاس أنا مستحضر أن أدرك الصومالي أنا مثلا أنا يوجد جرت قف الصومالي هذا هذا إثيوبيا ويا هذا أدسابي تكان ما لبضنا مران شر در يقولون دبتوني لكل مان هذه سشرعي في ذوق قاطان ودولة دولة كور قبطة ودولة دولة يوغاني سقف كاس مشوا مري وحد بعتها سوق على إلى ساعة هاي لتعدن صومالي إنه يتحي بكذا صومالي حتى بدأوي كده وسنتين سيابا كلا قدسنا أيوه قدبان أما ذلك أنا قدرس كنا لا تعدي أنت لا شرعية حوالها شيء نقدر حوالي الأوجي هاي هذي أما بدي عاديين أما مالقشيين وحق التجي شرع الاستوجي هلا حلو وهاي لا تهاي أما دولة صومالي لا تهاي دن صومالي ماشي سكنا ركضته هذه ذكري أنت لا مالقري كذا أنا قان لنا هاي مالقشي قاد اللي وذاعه هذه حوالها لو بعيني هاي شرد ما أهان دلك ساسو دلك يصيروا مالقليو مال بدنا مالقشي ومالها جنسيات مالها مبادئ كلامنا مالها واربح دون هذه مركا لقيه الشيء أو إثيوبيا عيد كذا كفاية سلهد أنا أقول عن كفاية سلهد طبعا أو دكت كسر الله بيسوع أبو حلقة دوسيو أبو حلقة سودجي دولة الصومالي يدرك الصومالي وحبي كيليان ليس مالقلي هذا إذا حنون كلو كإيمانه ماشي كان مغض لكن waxaan ka garaabayaa runtii dad badan oo labada professoraan ahayn oo Soomaaliya inay ka qabi karaan shaki maxaa dhici karo labada dal way kala dad badan yihiin waana kala deganaansho badan yihiin waxa kale oo dhinacaas waxay tahay taariikhda markii dib loogu noqdo colaad markii la doonayo inay soo gabagabowdo guud ahaan dadkaas waa inay yeeshaan dana ay keeno markaa ka bacdi inaan isku dhicin taariikhda hadda si baa loo fasiraa meelo xanuun badan waa laga qaataa meelo kalena waa laga qaataa waxay la tahay marka inaan ku qasbannahay inaanan u xabisnaan xanuunadii shalayta dhacay wax kamidana maanta ay dambeeyaan laakiin aan ka fikirno dadka soo socda Soomaalida ah in awoowayaal iskhilaafay amba isdiriray amba isdilay aysan u dabranaan ay u gudbaan nabad iyo nolol anaga maanta Soomaaliya waa ogsoontihiin dal waxaan nahay aad iyo aad shaqalaan ay uga jirto dad waxaan nahay dadkiisa dhalinyaro ay u badan yihiin dad waxaan nahay dadkiisa qaaradda Afrika meel kasta ku fidsan yihiin dad waxaan nahay xabsiyada adduunka oo idil iyagoo nolol raadinayo dambi raadinayo ay ku wada xiran yihiin laakiin sharci darro meelaha ku galay dadkaas waxay u baahan yihiin in loo abuuro mustaqbal loo abuuro shaqo loo abuuro dalkooda loo ilaaneeyo dalkooda meelaha ugu dhow oo ka irbaanaan kalena waa kalluumaysiga oo hadda heshiis dhamaystiran baydhabo looga gaaray waan rajeynaya inuu maalgashi xoog leh iyo dhaqaalo badan inay kasoo xiroodo waa dekadaha waa beelihii nafsadooda wax ka qabano oo maaragtay waxaan ku idhahdaa beelaha marka wax ka qabanayna waraabaa lafdhabar u ah lafdhabarka kasaane waa biyo Ethiopia nooga yimaada anaga Ethiopia isdhexqaad badan iskaashi badan wada hadal badan ayaan u baahannahay hay-adihii dastuuriga ahaa adoo raalliga ah hay-adihii dastuuriga ahaa ee dawladdu ay lahayd amba ha noqoto baarlamaankii amba ha noqoto xukuumaddii amba ha noqoto madaxweynihii haddii arrimo ay isla og yihiin oo hanaankii heshiisa markii la geli tago loo marayo loo maro oo khubarada iyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed lala tashado aniga waxay ila tahay inay arrinkaasi meesha ka saari karo amba yareyn karo
cabsida dad badan oo kala gedisan aqoon ahaan u kala gedisan degaan ahaan u kala gedisan oo Soomaaliya ay qabaan marka professorada waa soo dhaweynaa aragtida gaar ahaan professor maxaan ku raahdaa Cabdi Ismaaciil laakiin waa markii la wada fadhiiso oo hadalka la galo ayaa waxyaabaha uu ka hadlo idil xisaabka in lagu daro ay tahay laakiin aragti madaxweyne iyo aragti ra'iisul wasaare walaal madaxweynaha ra'iisul wasaarihiisa uu ag fadhiyo oo aragti ay tahay waxa la muujiyay iyo rabitaanka mustaqbalka waxa la rabaa waxay la tahay intaas oo idil oo mas'uul mudiyada mamudna waayahay wasiir hadalla aad qurux badan iyo waxyaalo rajo ah ayaad sheegaysaa haddii aynu kala saarno laba arrin labada qodob oo mid qodobka ku saabsan maalgelin iyo maalgashi oo hal qodob ah waa qodob in dekedaha Soomaaliya laga faa'iideysto oo Soomaalidu dhaqaale ka hesho shaqo ka heshana waa qodob Ethiopia waxaan ognahay in hadda isticmaasho dekeda Djibouti oo kale Somaliland dekeda Berbera oo kale oo isticmaasha dekeda Mombasa oo kale waxa isticmaala wadamo badan oo ku yaala bariga Afrika oo ka faa'iideysta laakiin arrinta professoraduna ay xuseen Soomaali badan walaac ka qabtay waxa weeye maalgashi waxaa jirtay in hadda ka hor xataa imaaraadka carabta shirkad laga leeyahay maalgashi ay damacdo inay ku samayso dekeda Soomaalida oo kale baarlamaanka Soomaaliya ka soo horjeestay oo kale Ethiopia in sidaas si fudud ay ku hesho maalgashi inay samaysato ma ka qurxoonayd in la yiraahdo okay ka faa'iideysa dekedan lacagna la baxa adeegna halada kugu sameeyo dadka sidaas ku doodaya maxaad ku qancinaysaa wasiir maya waxa iga hoos baxday su'aasha ahmida aad tiri imaaraadka in ay ugu celisaan jeclaalaha waa telefoon waa maasada kugu celinaya laba arrimood ayaa isdul saaran oo heshiisyada Ethiopia ama isafgarad ba ha noqdo hadduu doone ku jira waxa weeyaan maalgashi iyo in la iskaashado oo dhaqaale meel la geliyo oo lacag meel la geliyo waa qodob in Ethiopia ay ka faa'iideyso dekedaha Soomaalidu dhaqaale ka hesho shaqana laga helo ayana waa qodob waxaan ognahay in hadda Ethiopia oo kale ay isticmaasho dekeda Djibouti oo ay wax kala soo dogto waxna ka dhoofsato Berbera oo kale ay isticmaasho magaalada Mombasa oo kale dekeda ku taala waxa isticmaala wadamo badan oo ku yaala bariga Afrika Soomaalidu marka labadaasi qodob ma u furnayd inay kala doortaan oo ay intii maalgashi aan dhaqaalaba loo hayn heshiis lagu geli lahaa in ay ka haboonayd in la yiraahdo okay Ethiopia ka faa'iideysa dekedaheena isticmaala wax kala soo dega laakiin heshiis iyo maalgashi iyo qodobo cusub iyo intaas heshiis sana soconaya in laga fakaro dadka caynkaasi ku doodaya oo kale maxaad ku qancinaysaa saacadda wasiir dadkaas waxaan ku qancinaya horta dekedaha oo aad sheegtay gebigood waa dekeda dhisan oo wadamadooda ay dhiseen ama shirkado waaweyn oo kale ay u dhiseen taariikh dheer oo sooyaal ahna leh oo laga shaqeynayo dekeda la aasaasay ama dekeda kooban ma ahan aysa wadamada wax ka degsado misan Mombasa oo kale Uganda waxaan ogsoonahay in aad looga tixgeliyo aad iyo aad u xiiseeyaan waliba deganaanshaha iyo nabadda kaalin ku yeeshaan waxaan ogsoontihiin maalmo dhaweed inay ka wada hadleen wadamada bariga Afrika inay deked cusub oo hor le ay isla dhisaan oo dalka Kenya ah dekedaha marka anaga laakiin wadcigeenu wuxuu kaga gedisan yahay dekedaha oo markii aan maalgashiga aan samaynayno maalgashiga waa kala gedisan yahay dekeda Soomaali loo dhisay iyo deked wadamada geeska Afrika inay wax kala degaan loo dhisay maalgashiga waa kala balaaraanaya waxaan ku yiraahdaa habka ay wax loo maamulayo xataa waa kala gedisanaanaya laakiin lahaanshaha iyo siyaadada iyo go'aanka madambeysa waxaa iska lahaanaya dekeda dalka ay dekedaas laga dhiso Soomaaliya waxaan soo ogaataan dekeda kaliya ma aha dekeda inta la dhiso la deynayo waayahay laakiin wasiir adag raaliya professoraduna haga raali ahaadeen dowladda Imaaraadka Carabta heshiisiyo shirkad laga leeyahay oo DP World yiraahdo ayaa Berbera heshiis la gashay Somaliland iyo Ethiopia oo maalgashiga baarlamaanka Soomaaliya uu laalay arrintii madaxweynaha hortaala inuu ka dhigo sharci boosaaso oo kale waxaa jira Puntland in heshiis ay la gashay shirkada Imaaraadka Carabta laga leeyahay maxaa shirkadahaasi diidaya iyo dowladda Imaaraadka Carabta iyo cid kaleba in heshiis gasho Ethiopia u fududeynaya walaal aad iyo aad u kala durugsan yihiin waxaan rabaa dadka dhageysaa inaan dib ugu celiyo dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanku markay ka hadlayeen arrinta dekeda Berbera ma aanay diidin heshiiska laakiin waxaa la diiday heshiiska inaan lala gelin cidii sharciga u lahayd arrimahaas inay heshiiska ka gaarto oo jangoys iska lahayd ee dowladda Soomaaliya ah
maxaan ku idhaha dawladda dhexe ayaa arrinkaas ka lahayd marka heshiiska qodobadiisa dawladdu marra kama aanay hadin laakiin waxay ka hadashay yaa heshiis noocaan ah lala geli karaa dekada berberaa laga geli karaa midda boosaasaa laga geli karaa dekad cusbaa la samayn karaa laakiin wixii dekadaha ku aadan oo maalgashi dibadda ah amba dawlada ha noqdaane waxaa ka qayb qaadanaya amba sharikada waaweyn oo caalami ha noqdaane cidda shaqada kule waa dawladda dhexe meesha aad baad u mahadsan tahay saacadta wasiir waayahay waa mahadsan tahay daar maxamuud gelle wasiir oo kugu soo laaban doona professor samater iyo doctor salwan raalliga ahaada waayahay dhegeystayaasha aan u wareega haatan ra'yigooda cod ahaanta noogu soo duubay qayb ka mid aan soo daaya haatan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa xasan fanax oo jooga gaalkacyo runtii aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa una dhiirigelinayaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ku dhex maray muqdisho waxaana rajaynayaa inuu noqdo mid midho dhal ah oo ummadda soomaaliyeed faa'iido weyn ka dhaxli doonto uuna meesha ka saari doono cadaawaddii iyo madmadowgii soo jireenka ahaa ee dhex yaalay labada dal waxaana filayaa in uu noqon doono mid laga dhaxli doono isku soo dhowaansho deris wanaag amni iyo ganacsi wanaagsan labada wadanna ay iska kaashan doonaan waxyaabo fara badan oo aysan horey iskaga kaashan jirin magacaygu waa xayaad aragsan waxaan ka soo hadlayaa wadanka Jabuuti haddii ra'yigayga ka dhiibto barnaamijka dooda ee Jimcaha galabta runtii heshiiska dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed runtii heshiiska waxa ila tahay inaan Soomaalida wax dan ugu jirin maxaa yeelay Itoobiya waa wadan awood leh waa wadan dhaqaalihiisu sareeyo saay tahayna anigu waxaan aaminsanahay Itoobiya in ay rabto kheyraadka dhulka Soomaalida oo Ilaahay dhigay ee badaha waaweyn ee Soomaalidu leeyihiin iyo dekedahooga dabac weyn ayaa ka galay runtii waxaana rabtaa in ay kheyraadka Soomaalida ay Itoobiya ka qaadato sida aan hadalka ra'iisul wasaaraha ka dhadhansanayna waxa oo jiray inuu ra'iisul wasaaruhu yiri mustaqbalka waxa ay noqon doonaan Soomaaliya iyo Itoobiya hal wadan taasna runtii waxa weeyaan arrin aad u adag marka anigu waxaan aaminsanahay Itoobiya inay rabto waqtigan casriga inay Soomaalidu noqdaan maxmiyad inay u noqdaan wadanka Itoobiya aad baad u mahadsan waayahay aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaasi fikradaha kala duwan qaba martida intaan mar kale u wareegin waxaan jeclahay dhegeystayaashu aad bay u fara badan yihiin qaarkood su'aal ayay qabaan qaarkoodna ra'yi bay soo dhiibteen dhegeystahan su'aal ayuu qabaa aan idin maqashiyo magacaygu waa Ibraahim Cabdiraxmaan Maxamed Ciise waxaan joogaa magaalada Muqdisho ugu horeyn waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka Mawlid Haaji Cabdi iyo martida barnaamijka aniga waxaan qabaa laba su'aasha ugu horreysay waxaan weydiinayaa martida barnaamijka ee dawladda ka socota dawladda Soomaaliya waxay sheegtay booqashadii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku yimid magaalada Muqdisho in ay heshiis 4 dekedood maalgashi dawladda Itoobiya ay kula heshiiyeen madaxweynaha Soomaaliya oo arrinkaas ka hadlayna waxa uu sheegay in Itoobiyana aysan lacag hayn Soomaaliyana aysan hayn maadaama Soomaaliyana aysan qarash haysan Itoobiyana haysan Itoobiya waa maxay maalgashiga ay Soomaaliya kula heshiisay su'aasha labaad waxay tahay aan weydiinayo guud ahaan Soomaalida Itoobiya haddii uu arrinkan suurtagal noqdo maxaa ka dhalan karaa su'aashaas waxaan weydiinayaa bartida barnaamijka khibrada salaamu calaykum waayahay waxaan filayaa su'aasha wasiirka ku socotay inuu horey wasiirku uga jawaabay marka dhegeystahaas waxaan filayaa in barnaamijka uu la socday oo wasiirku naga qanciyo taas laakiin qaybta labaad ee su'aasha waxaan jeclaan inaan u wareejiyo professor Samater walaal waxa weeye nin Soomaaliya oo la oran jiray Allah yarxame Cabdullaahi Suldaan Timcade ayaa wuxuu yiri gabayadiisa waxa kamid ah mar haddaanad hamoon dunidu waa mooyi dabadeed haddaanad marka hore ka baaraan degin waxyaabaha had ku dhaqmasid mar dambe ku dhaaftay baad aragtaa marka waxa weeye haddii maalgashi la gashanayo madaxweynuhuna yiri Itoobiya ma haysto Soomaalina ma haysato maxaa u diiday dawladda Soomaaliyeed inta labada lugood isku duwato iyadoo hay raadsato waxay ku raadin kartaana haddii iyada gudaheega hay nadiifiso goboladii la hantiyo wadankii oo dhan la jiheeyo taasi waa taasi weeyaan tan labaadna waxa weeye wasiirku wuxuu yiri yaan loo maxbuus yaan loo noqon wixii hore dhacay taariikhduna waxay tidhaahdaa wixii hore dhacay haddaanad wax ka baran mar labaad ayay ku karbaashtaa marka waxa weeye haddii la doonayo in walaaltinimadan cusub la abuurayo iyo maalgashiga waxaan laga wada hadlo waxa weeyaan walaalkii loo xiiriyo aadna soo qoyso bal waxay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed degan Itoobiya gudaheega in la fahmo labada madaxweyne iyo ra'iisul wasaaruhuna waxay madaxweynuhu marka hore aan shirkan la gelin in strategy wadanka
maskaxdii waddanka ee qeexasay meeshaynu u soconno sidaynu doonano in laga sii baaraandego laakiinse iminka haddii la yidhaha commission baa la abuuraya ama guddi baa la abuuraya oo lagu dhex daato tafaariiqdii lagu daato waxyaaba dhibaato leh ayaa kasoo bixi kara walaa ta ugu dambaysana waxa weeyaan haddii laga hadlayo maalgashi arrintii dubayna way ka hadleen dadku soomaalida berbera maxay ku dhacday haddii soomaali loo naxariisanayo soomaali laga hadlayo in maalin dhawey dawladda dhexe ee muqdisho joogtaa hay soo saartay bayaan odhanaya heshiiskii European Unionka midowga Yurub la galay 4-5 sanadood horteed ee ahayd gobolka waqooyi ama Somaliland la yiraahdo in kharashkiisa la siiyo ilaa gooni loo siiyo si maalgashi gudaha loogu sameeyo ee imikana dawladdu leedahay waanu kala soo noqonanaa mana rabno oo Ingiriiska iyo European Union isku imika ku diideen waxaad arkaysaa fahmad weyn oo xamarta la dawladda inayna jirin oo ka fikiraysa sidii waddanka la isugu keeni lahaa aayaha wanaagsan iyo walaaltinimo la dhisana loo qeexi lahaa tafaariiqdii ayaa lagu lumayaa walaal waayahay professor Samatar aad iyo aad baad u baxsan tahay saacadii wasiir inkastoo mawduuca ay ka yara baxsan tahay laakiin haddana qodobkaasi professorku soo hadal qaaday tafaasiil haddaad kooban inaga siiso walaalow waxaan jeclaan lahaa had iyo jeer inaan ilaano topic aan ka hadlaynay topic laga hadlayo hadda wuxuu ku saabsan yahay communique halkan ka soo baxay laakiin haddii laga hadlayo wadahadal iyo maxaan ku yidhahdaa dawladda dhexe iyo Somaliland u dhexeeyay iyo marxaladihiisa oo saaray iyo dadka Soomaalida gaar ahaan dawladda dhexe siday uga heelan tahay inay walaalaha waqooyiga ee Somaliland inay wax la qabato iyo barnaamijkaas waxay la tahay inuusan fangal noqon karin barnaamij kale laakiin inta kale ee ogaa waxa ay tahay wixii horumar ah iyo wixii dhaqaale ah in lagu la sameeyay haddana barnaamijkan walow aanan rabin in kan kala dhaxlo haddana diidmo maahan waa habmaamul iyo hanaanka loo maamulaa hadal iyaana ka furan waana wax haddii ay qalad kusoo baxo la sixi karo laakiin wadahadalada iyo waqooyi iyo koonfur iyo Somaliland iyo dawladda dhexe iyo meesha ay wax marayaan iyo sida ay tahay iyo dadaalka dawladda dhexe ay samayso waxay la tahay dhowr doodood oo cusub oo dhowr maalmood ah inay u baahan oo aan dhaxgal gelin waayahay wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaan u goydin Dr. Salwe waxaan jeclahay dhageystayaasha qaar ka mid ah qayb labaad inaan idin maqashiyo magacaygu waxaa waadan kulbiya xawakiin oo joogta magaalada Hargeysa aan soo dhaweynayaa booqashada uu ku tagay Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ku tagay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya aad baan soo dhaweynayaa waxaana filayaa kulamada wada yeesheen madaxweynaha Farmaajo inay noqdaan kuwa taariikhi booqashada hayna waxay ahayd booqashadii ugu horeeyay ku tagay booqasho taariikhi ahayd waxayna cadaynaysaa in Soomaaliya hana qaatay waxaan kaloo filayaa heshiisyada oo saxiixdeen inay noqon doonaan kuwa taabagal ah oo taabaqaada ganacsiga iyo iskaashiga ay wada yeelanayaan in Soomaalida faa'iido badan ugu jirto ayay ila tahay sidoo kale laakiin balse dadka Soomaalida waxa walwal geliyay hadalkii uu kaga dhawaaqay markuu ku noqday dadka Itoobiya oo sheegay inay dal qura wada noqon doonaan laakiin lama aha inay wada noqonayaan dal qura waayo waa laba dal oo geeska Afrika ku wada yaala oo laba dal oo geeska Afrika ku wada yaala oo kala laba baastaboor oo kala gaar ah iyo xuduudo magacaygu waa Roble Maxamed Xuseen waxaan joogaa magaalada Garowe ee Puntland haddii aan fikirkay ka dhibto barnaamijka dooda jimcaha ee galabta waxaan anagu dawladda Soomaaliya u sheegaynaa shacab ahaan inaysan waxba noo qarin ama waxba de wax mugdi aan hoos aan heshiis lagu galin waxaan rabnaa wax waadixa oo badnaa kala soo dhigo oo dadka dhan la tuso oo intaas lagu heshiiyay dekadaas lagu heshiiyay anagu intaas aan yeelanaa iyagu intaas ay yeelanayaan faa'iidadaas noogu jirta barnaamijku hadba meesha maray inay nala socodso laakiin wax mugdiya in shacabka laga dhaadhiciyo marno waxaan rabnaa wax waadixa in dadka laga gado ama dadka la fahansiiyo anagu waa rabnaa diidan in dekadii si ganacsi ahaan ama de aan la ka karisto dakhli laga soo galo laakiin wax waadi xabaan u baahanahay in bulshada loo soo gudbiyo ama shacabka laga dhaadhiciyo ama shacabka loo sheego waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasha qayb ka mid ayay ahaayeen oo ra'yigooda soo dhiibtay waxaan jeclahay markaan stuudiyaha BBC da London inaan u wareego Dr. Salwe waad maqlaysay dhegeystahan ugu dambeeyay oo inkastoo wasiirka uu nagala joogo dawladdii oo ka jawaabi karo sida loogu baahan yahay in dadka wax lala socodsiiyo marka heshiis waxyaalaha la isku afgartay iyo qodobada 16 qodob ka kooban iskaashiga iyo dhinacyada kala duwan marka si guud loo hoos galo oo si loo dhuuxo ma u baahan tahay in inkastoo madaxweynuhu uu sheegay baarlamaanka in la horgeyn doono haddii heshiis laga dhigo
ma u baahan tahay Soomaalidu intay madaxdeedu iyo adinka aqoon-yahana aad taladiina dhibataan adiga iyo Professor Sumater iyo aqoon-yahanada kale meelaha u baahan in ay dowladdu dib u fiiriso iyo waxyaalaha walaaca la qabo iyo inay muhiim tahay inay dhegeysato ku muuqata waa jirtaa waa muuqataa waxa weeye horta markaad fiiriso sidaan daaya aan sheegay waxa weeye waxaan waa communique macnaha waxa weeye ma hataa memorandum of understanding hadda ma dhamaystirno laakiin walaac baa jira dhegeysta hadda ugu dambeeya wuxuu leeyahay ina waxaan ka qarin baan rabnaa xitaa afarta dekood lama sheegin xitaa may taayada waa jirtaa waaba caddahayba haddaad eegtid ama muxuu ahaa social media haddaad fiiriso website haddaad eegtid goox xoog leh baa jira gooxaasna wuxuu ku jihaysan yahay dekedaha iyo marka halkaa waxaa muuqata runtii baqdin xoog leh waan qabaa hal baan qabaa haddaad si u fiirsana dowladdu waxaan qabaa inay arrintaa aad uga fiirsato aad eegto anugu shakhsi ahaan haddaan ku dara qodobka ah waxaan isleeyahay wax ka weyn baa jira Soomaaliya Itoobiya wadaagi karto inaga eeg qodobka waxaad ku sartaa lafta haddaad fiirisid waxaa ka maqan wixii inaga aynu lahayn inaynu dhoofino sida milixda kalluunka waxyaabo badan inuu dalkeena leh baa jira Itoobiya aan u dirno kuma jirto meeshatan marka waxaad moodaa dantii Itoobiya oo keliya baa xooggeeda socda Itoobiyana maxay awoodi kartaa waa baqdinta dadku haysato weeye wasiirka markii aan weydiino su'aashaas wasiir aad baad mahadsantahay Dr. Selwi Soomaalidu maxay ku bedelanaysaa maxaa faa'iido ugu jira haddiiba heshiis rasmi oo noqdo baarlamaanku uu hirgeliyo dowladdu ay u meel marto qodobadan hadda is-afgaradka koowaada maxaad ku bedelanaysaan adinku waxa aan ka hadalnay waxaa waaye madax aragti isdhaafsatay heshiiskii iyo wadahadaladiisii iyo qodobadiisii iyo khubaradiisii weli ma aanay bilaaban dadka Soomaalida ee mas'uuliyiinta ah dad aan dalka iyo dadka la socon ma ahan waxa aan u dhoofin Itoobiya waan ogsoonahay waxa aan ka soo dhoofsan waan ogsoonahay maxaan ku yiraahdaa oo aad iyo aad xoolo ay kamid yihiin xoolaha kilinka shanaad qaar badan oo kamid ayaa dalka Soomaaliya laga dhoofiyaa kalluun iyo cusbo iyo waxyaabo ka badan badeecooyin Soomaaliya ka dagaa Itoobiya hadda galo laakiin waxa kaliya oo raba inaan idhaahdo waxa ay tahay dowladda Soomaaliya marxaladda heshiiska markii loo gudbo waxay heshiiska u gudbi doontaa iyadoo qaran iswataa waxaan kaga jeedaa baarlamaanka kaalin lahaanayo golaha wasiirada kaalin lahaanayo aqoon-yahanka Soomaaliyeed ayaan loogu simi doonin fariin warbaahineed inay uun soo gudbiyaan oo tashi la sameyn doonaa dhaqan sooyaal oo arrinkaas ku aadana waa u jiraa waad ogsoontihiin alba ka hor maxkamadda adduunka waxaa la geeyey dacwadii Soomaaliya aqoon-yahan Soomaaliyeed oo meelo badan oo dowladda ka tirsanayn oo arrinkaas loo idmaday oo ka shaqeynaya ayaa jira khubaro Soomaalida lala tashada ayaa jira diblomaasiyiin Soomaalida lala tashada ayaa jira marka dowladdu ma noqonayso keligii duul waxay noqonaysaa dowladda aqoon-yahankeeda wadato maamul goboleedyada wadato baarlamaankeeda wadato xukuumadeeda warqabto khubarada intay heli karta adeegsato arrinka kan waan dareemaynaa inuu yahay isbedel mug leh oo macno weyn leh oo dadka Soomaaliya ay ku kala aragti guddisan yihiin sida kaliya arrimahaas loo meel mari karna waxay tahay in wada tashiga la balaariyo marka professorada hadalkooda iyo doodihii baryahan oo idil aan ka qayb qaadanay intaan ka fahmo waxa ay tahay arrinka talagelin badan ka sameey wayna helayaan taas aniga dowladda ku matalo dowladda talagelin badan maamul goboleedyada ku aadan meelaha ay joogaan laga hirgelin doono aqoon-yahanka dibadda oo kay Soomaaliyeed iyo baarlamaankooda dastuur ahaan u leh golaha wasiirada soo bilaabida u leh madaxweynaha dhamaystirka u leh intaas waa wax la qaran isla socda ay arrimaha noocaana galayo dowladda Soomaaliya madaxweynaha hogaamiyana arrinkaas ka go'an aan ku daro marka qodob baan ku daraya qodobkaasi uu mataqaana hadda ka jawaabay qodobka marka aan ku daraya raacinaya waxay tahay horta ugu horeysa arrintan walwalka waxa keenay sida hadaayay dhowr jeer loogu celiyey afar dekedood xoolana ayna u ahayn laakiin waxaan ku daray horta hore waa wax muhiima loo baahan yahay waan ku hambalyeynaya anu in lagu hambalyeeyaan qabaa madaxda Dr. Abiy iyo madaxweyne Maxamed farmaajo in lagu hambalyeeyaan qabaa oo arrintan iyada ah waa wax muhiima loo baahan yahay inaga laba daris baynu nahay oo soo baahan nahay wixii hore colaadda ahaana in la masaxo la dhaqo aad baa loogu baahan yahay qodob kale waxaan ku daray oo muhiima waxa weeye uma baahni inaga dalka Soomaaliya uma baahna investment inay ku samayso muxuu dekado uma ay baahna Soomaaliya inay gaar ahaan u raadsato oo wixii kale marka Soomaalidu diri lahaydna ay dirsato sidoo kalena ay u fasaxdo Itoobiya in ay u noqoto bad meeshay mataqaana ka gaarto waayo hadda sida hadda la hayo waa Djibouti oo kaliya weeye waxa hadda socda heshiiska hadda Itoobiya ay la gaartay Eritrea inay dib ugu noqotay doonaysa Eritrea
innagana sidoo kale inay la gasho waa u baahannahay maadaama laysu baahan yahay in la masaxo wixii hore la dhaqdhaqo heshiis fiican la galo laakiin Soomaalidu iskaashi la wada galo Soomaalidu laakiin iskii xurraasad ka wada waad mahadsan tahay waayahay mawduuca ugu dambeeyay qaybta ugu dambeysay barnaamijka waxaan jecel lahay inkastoo wasiirku uu ka hadlay oo laakiin madaxweynaha Soomaaliya arrintaasi uusan ilaa hadda ka jawaabin ra'iisul wasaaraha Itoobiya hadalkan ayuu jeediyay waxaan jecel labada professor inaan ra'yigooda weydiiyo ወይም ደግሞ ከዚህ ቡና እየላኩ መኖር ብቻ ሳይሆን wadahadaladana dhaxmaray waxaan ku heshiinay arrimo rajo badan geliyay sida inaan si kumeel gaar ah isaga kaashano dhaqaalaha mustaqbalkana aan shacabkeena mideyno oo aan noqonno hal dal oo dhameystiran waa in wadamada geeska Afrika haddii ay suuragal tahay ay noqdaan hal dal oo mideysan sida Dubai ama Mareykanka ama Yurubba taasoo aan ka heli karno faa'iidooyin ballaaran caalamkana aan uga yeelan karno awood gorgortan marka arrimahaas ayaan ka wada hadalnay haddaba taa macnaheedu muxuu yahay Soomaaliya waa dal juqraafi ahaan ku yaala meel muhiim ah laakiin biyaha badda ee inta la eg ee Soomaaliya ku wareegsan waxay noqdeen kuwa maalintiiba aan lagu arkin hal markab ma aha biyo la cabi karo ama wax lagu beeran karo marka inaan dhahno dekad la'aan ayaan nahay dhibaato ayay nagu tahay mustaqbalka fog marka la eegana arrintaasi dhibaato iyo waxyeelo weyn ayay nagu yeelanaysaa ከረጅም ጊዜ አንጻር ጎጂ ሆኗል እየጎዳን ያለው ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo telefishinka wadankiisa la hadlayay ayuu ahaa Professor Samatar ayaan jecel inaan siiyo hadalka inta badan dooda ka dhaliyay Soomaalida dhexdeeda ra'iisul wasaaruhu uu ku leeyahay mustaqbalka waxaan noqon karnaa hal dal inkastoo dawladda Soomaaliya wasiirka uu ka jawaabay barnaamijka qaybtiisa horena kaga jawaabay laakiin adinka waxaan jeclaa Professor aqoon-yahano Soomaaliyeed ahaan sidee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya ugu dhiiran karaa hadalka caynkaasi oo kala isoo koob adoo aad u mahadsan Professor Samatar hal daqiiqo waxa weeyaan waxay ku tusaysaa kalsoonidu isku qabo iyo dawladdiisa iyo dadkiisa uu ku qabo ayaa muujinaysaa Prime Minister Ahmed inuu sidaa u hadli karo markan soo dhaafno wasiirkeena wanaagsan afkubaadsigiisa waxa weeye meeshan waxa taala ubuc Soomaaliyeed baa taala oo balansan oo suuqa taala marka waxa weeye dhowr qof baa la isku yeeranaya waanu ni dhageysana waanu soconna taasi wax weyn ma keenayso waxa weeyaan inay dawladani la timaado iyadoo dadkayga kaashanaysa strategy halis ah oo qeexasa meeshaynu u soconno waa siduu Dr. Ahmed oranayo weeyaa teena qeexasa siduu Professor Salwi yiri sheegaysa danteenu waxay tahay waxaan dhoofinayna waxa kale xuduudana intaan taala sel kamen in aaminaad la abuuro ayaa wax walba ka horeysa labada dal inay is aaminaan haddayna aaminaadaasi ku dhisnayn taariikh run ah waxa weeyaan waxbaa la isku qarinayaa Ahmedna meesha uu socdaan inii sheegi waxa uu socdaa waxa weeyaan dawlad Itoobiya oo heybad weyn leh oo hadduu helo Nobel Prize kana si qiimo reer galbeed iyo cid walba isaga dhageysan doonto Soomaaliya dhageysan marka strategiga haddii dawladda Muqdisho joogtay ka leeman weydo waxa weeyaan hal bacad lagu lisay noqon doontaa waana nasiib wallahi waa mahadsan tahay Dr. Salwe horta Professor Samatar kalmadiisa wax jira waxa qawaya waana wax mataqaana saxwi anigu dhinac kale aan ka eego hadal waa markii baa la yiri horta ninka kani audience-ka ula hadlayay ahaayeen way Ethiopia buu la hadlayay wuxuu gadayay siyaasadiisa oo maalmaha aad moodo sidaan hore aan sheegay xawliga ku socda khatarna leh runtiina xataa ururada isaga ka tirsan TPLF-ta hadda sidaan war ku hayno xogaa waxaad moodaa gunuux waa ka dhaxaya oo mataqaana shidaa markii la eego dhinaca la eego waxaan qaadan lahaa anigu markuu leeyahay hal wadan baan noqonayna macnaheedu ma aha Soomaaliya Ethiopia hal dal inay tahay waxa weeye heshiis baa naga dhaxaynaya wala tan naga dhaxaysa dhalasha naga dhaxaysa waana wax jira weeye sinjad marka la yiraahdo deegaan marka la yiraahdo dhaqaale iyo baahi aan soo qabno marka anigu dhinacaas u qaadan lahaa Professor Samatar waa ku raacsanay waa sax weeye laakiin dhinaca kale aan weegno waaya aad baad u mahadsantahay waqtiga aad buu cariir loogu noqday wasiirka waxaan filayaa wasiir hore waad uga jawaabtay su'aashaasi kugu celimayno horena waad uga soo jawaabtay aad iyo aad baad u mahadsantihiin Ambassador Daahir Maxamuud Geelle wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya oo barnaamijka qadka telefoonka uga qayb qaadanayay magaalada Muqdisho ayuu ku sugan yahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo falanqeeya arrimaha Soomaaliya ahna professor wax ka dhiga jaamacada ku yaala Mareykanka iyo Koonfur Afrika dalka Mareykanka ayuu ku sugnaa oo telefoonka barnaamijka uga qayb qaadanayay studio London waxa la fadhiyay Dr. Cabdisalaam Maxamed Ciise Salwe oo ah professor ama bare ka tirsan jaamacada East Africa ee Puntland
aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijka waxaa soo saaray cabdinuur sheekh maxamed dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay iyo kuwa kale aynu fursad u weynana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa inoo caawa haddii aan leedmo 9 fiidnimo inta ka horeysa waa mawlid xaaji cabdi oo idin leh nabadgelyo